furitaankan wejiga koobaad ee shirkan dib u heshiisiinta ay la doonayo in lagu soo afjaro waxaa sababay colaad beeleedii dhowaan ka dhacday tuulooyinka Baladweyne iyo Dabeyle oo ka tirsan deegaanada waqooyi galbeed ee magaalada Baladweyne isla markaana u dhaxaysa laba beelood oo walaalaha maanta laga jaafuray hotel Global ee magaalada Baladweyne ayaa labada dhinac ee dirirtu dhex martay waxa laga dhageysan doono oo kaliya waxaa sababay dagaal beeleedka oo ku bilowday si xal waara looga gaaro dagaalkaasi gogashan dib u heshiisiinta ayaa waxa dhigay maamulka gobolka Tirsan oo kaashanaya odayaasha dhaqanka gobolka Tirsan oo dhexdhexaadinaya labada dhinac waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Tirsan kan degmada Baladweyne wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle ugu horreyn waxaa furitaanka shirkan si wada jir uga hadlay Isla Cabdinuur Macalin Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta labada beelood iyo nabadoon Maxamed Cabdi Raaxo oo loo yaqaan nabadoon Dagaalamay oo isna gudoomiye ku-xigeenka guddiga nabadda iyo dhexdhexaadinta labada beelood dirirtu dhex martay waxayna si wada jir faahfaahin uga bixiyeen ajandaha shirkan maanta uu ku saabsan yahay waxayna waxgaradka labada dhinac ee dirirtu dhex martay ka dalbadeen inaan goobta laga sheegi karin hadallo xanaf leh ama keeni kara colaad isla markaana ka baxsan ajandaha shirka maanta uu ku saabsan yahay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan rabnaa labada beelood ee walaalaha ay wax dhex mareen beel kasta waxaan rabnaa in kitaab qur'aan oo sabayn oo xil oo xabad joojin aan godoonsiino in adaga qabteen labadii qof marka aan ku wareejin lahayn labada beelood inay soo istaagtaan codsanayna labada kitaab aan siinayna labada cidood hadii qodad urud ay jiraan iyo uradnimo loogu dhiibaayay iyo hadii qof oo gudoomiye guddiga waas loogu dhiibaayaba labada qofkii marka lagu wareejin lahayn rabnaa inaan siino hadii alla idmayno inay soo istaagaan codsanayna waxaan kugu dhiibnay ilaahay kitaabkiis inaad ku sabartaan wixii idin galay idin ka baxaan aywa barakallahu lak waxaan idinku dhiibnay ilaahay dartiis waxaan idinku dhiibaynaa in maslaxa iyo khayr lagu gaaro inaad ku qaadatiin rajaynayna insha Allah taala waxaan noo dhiman ajadaha shirka iyo furitaanka shirka ee dawladda nala joogto ayada kullay insha Allah qaybtaas iska lahaan doonto wixii ajadaha shirka waxaan noo sheegi doonaa Sheekh Maxamed warka bilaabanaho ma ahan garsoor berga ma ahan walaalka xaad ku dish war adiga walaalka xaad ku dish fidnada meesha ka bilaabatay laga hadlo dawladdu ay dhageysata annagana aan dhageysano nin xagto iyo nin hadal xagal ku hadlan oo san jirin nin walba Ilaahay ka cabso sokayaa cis dadku waa rixin waa wada dhashay meel aan kala aadayna mala ninkii meel naga aadna dhintay waa marka waxaad ku soo dhawaanaysiin warkiyo xadidan xildhibaan Cabdulqaadir oo Bakar oo loo yaqaan xildhibaan Dagaalamay oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle isla markaana ku hadlaya afka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ka qayb galay furitaanka shirka nabadeed ee laga daafuray magaalada Baladweyne ayaa guddiga dhexdhexaadinta ka dalbaday inay ka cadaalad falaan waxay isku qabteen labada dhinac ka maamul ahaan ballan qaaday inay garab taagan yihiin dadaalada nabadeed ee dib u heshiisiinta lagu soo afjarayo waxa sababay colaad beeleedaasi labada beelood oo walaalaha waxaan leeyahay guddigaas walaalihiina oo reer Hiiraan oo culumada ah oo odayaasha ah oo sooman ku kalsoonaada ayagana guddigana waxaan leeyahay aadan ugu mahad celina u cadaalad fara dadkaas walaalihiina waxay isku haystaan ku kala saara anigu gacmihiiniyaan nahay hadii aan dawladda nahay Hirshabelle iyo dawladda inta aan nahay maamul goboleedka halka ka jiraan waxaan leenahay wax alla wixii go'aan oo aad ka soo saartaan arintaas ayaan fulinaynaa arintaas meeshii ciidamada kala dhex dhignay maantana waxa halkan lagu furay oo maanta oo dhan aan u fadhinay oo odayaashii ay ku fureen in labadii beelood ay isku dhageystaan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka maaliyadda gobolka Tirsan Abubakar Cabdullaahi Maade oo ka hadlaya afka maamulka gobolka Tirsan isla markaana daafuray shirkan ayaa ka codsaday waxgaradka labada dhinac in xabadda ay ku bedelaan wada hadal walaaltinimo iyo Gogol Nabadeyd isla markaana u mahad celiyay guddiga dhexdhexaadinta reer Hiiraan isku xilqaamay nabadeynta labadaasi beelood asigoo rajo wanaagsan ka muujiyay in lagu guuleysan doono nabadeynta labada beelood gooshan oo maamulka gobolka iyo dhammaan ay ka soo qayb galeen odayaasha reer Hiiraan qaybahooda kala duwan ilaa labadii beelood is dagaashay waxaan rajaynaynaa wax nabad oo lagu nasto inay ka soo bixi doonaan waxaan kaloon inaan adinka codsado aan rabaa waxa lagu jiraa waqti roob guriyaha aan arko farax badan waxa degnay dad haddana waa ka maqan yihiin oo si niyad ah nabadan in loo galo ilaahayna waa idinku guuleynaa shirkan waa noo furan yahay Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse Hirshabelle TV Baladweyne